qurxamo libaaxii dadku gacashanaya garbadkay cayaaraan shabeelkii wax goyn kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga toddobaadkii barnaamijka tusmada sharciga wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta xaqa qofka uu u leeyahay inuu yeesho hanti u gaar ah uuna u isticmaalo sida uu rabo hantidiisa. mowduucan waxa uu diiradda saarayaa in la fahmo xaqa qofka uu u leeyahay inuu hanti yeesho uuna u isticmaalo sida sharciga waafaqsan. waa maxay hantida qofka si gaar ah u yeelan karo ee mudan in la dhowro? waa maxay noocyada hantida uu qofka yeelan karo oo ay tahay dowladda inay u ilaaliso? dastuurka Soomaaliya iyo xeerarka kale ee dalka siday u ilaaliyeen xuquuqda lahaanshaha hantida. heshiisyada caalamiga ah siday u ilaaliyaan xuquuqda lahaanshaha hantida. shareecada islaamka siday u ilaalisay xaqa lahaanshaha hantida. martida barnaamijkuna waa Maxamed Cabdi. haddaba wixii su'aal iyo aragti oo kaaga baxay waxaad inoogu soo hagaajin kartaa lambarada idaacadda oo kale ah Ebril 69 62 24 Ebril 3 ama Ebril 69 62 24 Ebril 4. tusmada sharciga waa barnaamij awoodsiin iyo horumarinba u ah bulshada iyo bahda dhiganaysa cilmiga sharciga qaanuunka. waxaa nagala qayb galaya asxaabta kale ah maxamed muxudiin cabdulle, ibtisaam xasan aadan iyo maxamed cumar geedi. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga. su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda? dhib ma kala kulantay helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray? ma jeclaan lahayd in lagaa caawiyo ama lagala taliyo? haddii ay jawaabtu tahay haa, fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah, kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho. hagaag bani aadamku waxay dadaal xoogan ku bixiyaan sidii ay ku heli lahaayeen hanti badan kuwaas oo mara wadooyinkii lagu gaari lahaa. haba ku kala nasiib badnaadaane hantida uu qofku samaysto waxay u tahay mid isaga u gaar ah oo xorriyad u siinaysa inuu u isticmaalo waxyaabaha uu danaynayo ee aan ka hor imaanin shareecada iyo qaanuunka. haddaba barnaamijkeena waxaan ku lafaguraynaa ilaalinta xaqa qofku u leeyahay inuu yeesho hanti u gaar ah uuna u isticmaalo sida uu rabo. waxaana sharaxaad buuxa inaga siin doona maxamed cabdi kadiye oo ah abukaate iyo bare jaamacadeed. marka hore waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka. aad u maasan tahay mudane maxamed qadar oo ku dhawahay barnaamijka. aad u maasan tahay. waxaad nooga warantaa waa maxay hantida qofka sida gaarka ah uu u yeelan karo ee mudan in la dhowro ama la ilaaliyo? intaanan aan u gelin horta hantida uu yeelan karo, horta waxaa fiican inaan wax yar ka ogaano hanti sideeda maxaa loo yaqaanaa. hanti waxaa loo yaqaanaa qofka waxa uu kasbaday oo asaga uu shaqaystay oo qaab kastaba ku timaado. tusaale qofka hantida wuxuu ku yeelan karaa inuu kasbaday uu shaqaystay, inuu dhaxlay, in loo hibeeyey, waxyaabahaas oo dhan ay ku imaan kartaa oo waxaa loo yaqaanaa milkiyad. marka milkiyadda islaamkana waa ka hadlay, shareecada islaamkana si fiican uga hadashay, xeerarka caalamkana way ka hadleen. taasaana anaga aan isticmaalnaa maadaama islaam aan nahay. marka hantida waxaa loo yaqaanaa qofka waxa uu shakhsi ahaan oo privacy loo yaqaanaa Englishka, waxa asaga shakhsi ahaan qofka uu leeyahay ayaa loo yaqaanaa hanti. marka hantidaas waa hantida la rabo maadaama qofka ay xaqiisan noqotay oo milkiyadda asaga uu lahaaday in loo ilaaliyo. waxaan uu ilaalinayo markastaba xaqunnaas waa hantida sideedaba qofku waxa uu leeyahay waaye. marka xaqunnaasna waxaa lagu ilaaliyaa qofkaas xaqiisa hadba hay'adda markaa meesha joogto. hadday noqoto maxaa loo yaqaanaa ummad yacni meesha wada degan oo traditional dhaqan ahaan ah, hadday noqoto in dowlad ay meesha ay qofkaas hoos tago. haddii dowladdii in case ay noqoto in xataa ay ku xadgudubto internationally ahaan, caalami ahaan, يعني شريعة الإسلام كان واسفي عن وهذا الشيء حركة عالم كان عادي وهاللين مركه هنتداس وهنتدا قفك حق ولي هاي أي تهاي شرعية إنه إلى عليه حد وحان الله في ريا حالة مركز لجسكين هاي بعدين نقطة الدورة إلى الناس الدورة إنه يكون إلى الناس شروع ذلك
hadday noqoto qaab dhaqameedna dhaqamada dadka ayaa u ilaalinayo ayagoo fiirinayo yacni waxay u leeyihiin dhaqan ahaan ama tradition ahaan ama custom ahaan oo ay tahay in qof xoolihiisa qof kaleeto uusan ka qaadin karin ayna u samaysanayaan xeer ayagu degsan oo gaar ahaaneed hadday noqotona xeerarka wadanka oo ayadana muhiimka asalka u ah oo loo yaqaano law of the land sharciga dalka markaas ka jiro ayaa ilaalinayo ayadoo oo beeskiisa ay noqonayso shareecada islaamka ama xeerarka caalamiga waa maxay noocyada hantida uu qofku yeelan karo oo ay tahay inay dawladdu u ilaaliso hantida oo qofka yeelan karo waa noocyo badan tahay hantida waxaa loo kala qaadaa mid muuqata iyo midaan muuqanin midda muuqato waxaa loo kala qaadaa ayadana mid loo yaqaano mid socota iyo midaan soconin oo loo yaqaano hanti guurta ah iyo hanti maguurta ah hantida maguurtada ah waa tan la isla wada yaqaano oo inta badan waa guryaha dhulalka beeraha waa hanti ka mid ah hantida muuqata ee maguurtada ah hanti kalena ayadana maguurtadii waxay hoos gashaa hantida muuqata hoos gashaa waa hantida socota sida baabuurta oo kale diyaaradaha oo kale maraakiibta oo kale waa hanti marka ayada waxay soo hoosgalaysaa hantida muuqatay soo hoosgalaysaa taa marka qof kastaba u muuqataa wuu arkaya laakiin hanti kale waxaa jirto oo dadka ay bini'aadankana qiimo weyn u leedahay oo badanaana aan Soomaaliya aad looga isticmaalin oo sharciina uusan ka jirin oo mar sharcigaas uu soo baxay laakiin aan dhaqan galin waxaa loo yaqaanaa hantida aan muuqanin marka hantida aan muuqanin waxaa loo yaqaanaa intellectual property oo ka soo qaad waxaa loo yaqaanaa hanti maskaxeedka qofka hanti maskaxeedka marka waa noocyo badan tahay marka ayadana noocyo badan la sii leedahay ka soo qaad waxaa ka mid ah qofka waxa loo yaqaano fikirkiisa oo kale idea waxyaabaha idea loo yaqaano oo fikrada oo kale to hanti maskaxeed qofka uu leeyahay oo loo ilaaliyo waayo waxa soo galayso waxyaabaha loo yaqaano design marka waxaas dhan waxay ka soo asbaxayaan fikrada oo macnaheedu noqonayso qofkan fikradiisa waxaa lagu sameeyay company hebel sharaa'an marka company la abuur raba qofkan wuxuu leeyahay companygaas saan loo sameeyo saan hadii la sameeyo waxa dhici karto in waxay ka halaabaan marka fikirka noocaas ah ee lagu dhisay companygaas fikirkaas qofkaas hanti ahaan adduunyada waxaa jirta mararka qaarkood dad isku imaadeen oo malaayiin dollar haystaan waa hanti muuqata haystaan ninkan hanti muuqata ma haysto asaga marka waxaa looga baahanayaa xafiiska u furan kaliya wuxuu gadaa hanti aan muuqanin xafiiska wax u yaala ma lahan dhar uma yaalo baabuur uma taalo guriga uma yaalaan laakiin billionaire waa wuxuu ku noqday fikradiisa waa fikradaas inta loogu imaado fikradan kala gadanaya marka fikrada waxa loo gadanayaa ama lacaga laga siisanaya fikradaas inuu siiyo ama waxaa dhici karto in uu kula shirkoobo macna dadka kula shirkoobo wuxuuna kula shirkoobay kaliya fikradiisa marka waa hantida adduunka ugu qiimo badan waaye fikrada marka fikradaas ayaa waxa ka dhalanaysa marka in ID-diisa shakhsi ahaan uu gato ayadoo waxba ogsan ku darsanin waxa dhici karto in uu design sameeyo kasoo qaad tusaale ahaan design waxa u naqaanaa waa fikrad ayadana anta maskaxeed ka tahay design waxa loo yaqaanaa kasoo qaad jaamacadda Muqdisho kale waxay leedahay design ay u samaysan tahay qaab qoraal loogadaas designkaas qofka abuuray qofkaas yani in loogadaas uu abuuro oo loogadaas qofka iskale hadii berika maalin oo rabo in companygaas baaba'ay ama companyga uu noqday wax loo yaqaano bankruptcy ama ku dhacday musallaf uu ku dhacay magacaas hantida macnaha companyga la xaraashayo soo qaad musallaf ku dhacay marka hantida la xaraashayo waxa dhici karto in magacaas loogadaasna ay u noqoto lacag ka badan lacagta oo muuqato oo hantida muuqata oo ku gadan karo lacag ka badan lacagta yani oo wixii uu gadanay marka design-ka ayadana hantida waxa loo yaqaanaa aan muuqanin ee hantida qofku uu haysan karo waxa kamid ah soo qaad su'aalo ahaan trademark oo kale trademark waa sida loogada kale ayadana waxa kamid ah soo qaad sida Nike oo kale oo shirkadda Nike su'aalo aan soo qaad hada Samsung oo kale magaca Samsung magaca iPhone oo kale waxa loo yaqaanaa hantida aan muuqanin qofka fikradiisa uu ku keensaday oo trademarkaas kaliya lagu shaqeysanayaa waa hanti qofka hadda ka hor uu sameeyay laakiin u soconayso intaas oo sano waxa laga soo qaaday su'aalo ahmed kala hadlaayo waxay soo hosgalayaan waxa loo yaqaano copyright-ka yani xuquuqda copygiisa qofkaas hadii qof kale uu rabo inuu isticmaalo in uusan isticmaali karin qof kale qofkaas hantidiisa uu lahaan doono Mareykanna waxa loo soo qaataa in uu yahay 100 sano waa
hanti maskaxeedkaas qofka asaa iskale haddii qof kale uu isticmaalayo hantidaas markastaba macnaha ninkaas magaciisa isticmaal rabaa waxaa waajib ah inuu soo weydiisto idin ah in uu magacaas isticmaalo oona share kula ahaado qofkaas Europe oo kale waxay sameysteen 50 sano marka hantidaas oo hantida loo yaqaan hanti maskaxeedka waa tan oo hadda Soomaaliya macnaha aan la ilaalinin xuquuq ahaan looma ilaaliyo sharci ahaanna kama jiro dadkeena waa ku dulman yihiin waxaa dhici karta mararka qaarkood dadka hadda qurbaha ka imaaday oo Europe iyo Mareykan ka imaaday oo qaxooti ahaan u qaxay adduunyada u qaxay waxaa dhici karta in la imaadaan fikrado yani wadanka ku cusub maadaama ay ka imaadaan wadamo horumaray marka inta imaadaan oo u baahan yihiin inay hal abuur sameeyaan ama shirkado sameeyaan ama wax adduunka Soomaaliya ku cusub ay keenaan waxaa dhici karta in xaqooda wax ilaalinaa ma jirto wixii bilaabeen dadka Soomaalidana waa taqaanaa waa copy paste loo yaqaan wixii way arkayaan lacag ay haystaan China tagayaan wixii soo koobiyeen oo keenayaan qofkii marka hanti maskaxeedka la yimid oo maskax ahaan wadanka u leeyimid wadanka horumarkiisa qayb ka ahayd asna xaq uu ku heli lahaa oo lacag ka sameyn lahaa oo lacag ku soo bixiyay ummadina ay ka faa'iido lahayd horumarkina qayb ka noqon lahaa waxaa dhici karta in wax uu ilaaliyo aysan dhici karin because dawladdiina wixii ma taqaano oo faham ma jiro sharcina ma jiro ummadina waxa waaye ummad yani oo وأنا سيدا هنتدا موقت لو كلا دعو أيا وحا كدرن تن أن موقنا لك الدعي مان هنتدا قفك أولي مد أو مسكحات كأه والفكر ذا هو يوروب أو مريكان كلي ماضي وحلوق الجامعة لودكتا أرد محي الجامعة لودكتا ومدو أفر سنة وشن سنة قفك صادقنا يا هنت مسكحات كأه وحيسوج كشا international trade لوجا ولو يقانو حركة عالمية كنعسية كجرتا وما دك كمد وحلو يقانا intellectual property law وما دردن أو لوجو برتو جامعة لوجو برتو qofka marka intaas soo sano soo baranayay qaabka wax loo abuuro intadiisa qaabka loo ilaaliyo fikradahaas uu leeyimid waxyaabahaas oo dhan maxay tahay marka qofka wadanka uu la yimaado hanti maskaxeedkaas uu asaga fikirkiisa laga yaabay inuu soo gatay markuu wadanka yimaado uu rabo inuu ku shaqeysto uu arko in wixii haduu uu sameey maagaba talaabada uu qaadi maagaba waxa laga yaabaa kan la agdegan ama walaalkiisa dhici karto inuu ka xado fikirka uu ka xado oo la yiraahdo dad shirkadaha adduunka waa la kala xadaa fikradaha noocaas laakiin markii la kala xado waa isku dacweeyaa oo maxkamadda la isla aadaa kadib maxkamadda soo kala xukunto qofka xaq iskala dawlad ugu celiyo laakiin Soomaaliya waxa waa qof intuu qof dilo ama xataa daba kicina leeyahay marka hanti maskaxeed la xadayaa ku daba kacayo sharcina ma jiro qofka hadii xataa uu dacwo maago sharci hadda oo copyright act oo adduunka laga isticmaalo Soomaaliya kama jiro hadda ka hor waxaan filaa 1975 xilligii Maxamed Siyaad Barre ala u naxariisto dawladii hore kacaanka ayaa mar intay sameysay ayaa haddana waxay noqotay maadaama dawladda ay kacaan iska ahayd oo military iska ahayd marka xuquuqaha noocaas maadaama waxay military ciidan iska yihiin xuquuq badan lama ilaaliyo marka xeerka hadda uu waajira Soomaaliya walakin ma dhaqan galin oo lama meel marin baarlamaankii la horgeeyay sharci ahaan lama meel marin haddana dawladaha hadda joogo ee intaas soo isdoomaray oo hadda madaxweyne Xasan Maxamed ugu dambeeyo wali kuma baraarugsano in yani hantidaas hadii xeerkaas la soo saaro waa xeerarka ugu muhiimsan dalka lagu horumarsiin lahaa hadii la soo saar lahaa waxa dhici kartay in wadanka wax badan uu ka tooso oo dadkan banaanka qurba joogta oo wadanka Soomaaliya u dhashay banaanka ku maqan horumarka wadanka ay qayb ka qaadan lahaayeen marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqonaysaa sida hada sheegayso kale qofka xataa haduu wadanka yimaado uu rabo in ama qof wadanka jooga xataa soo qaad ku yimaado marka wadanka jooga qaadkooda waxay yihiin very creative waa Soomaalidu waxa lagu yaqaanaa dad yani horumarka jecel oo wax cusub wadanka kaasado hada salaamku sina hada Kenya oo kale marka tagto Isliyo kale dadka ugu ganacsi badan Soomaalida waay oo lacag badan fikradahaas oo activitieskaas xaq u ilaalinay leeyahay markay meesha tageen ganacsigooda waa wacnaha uu buraaray oo ilaa iyo wadamada East Africa bariga Africa lagu imaado ganacsigooda maxay tahay waxa la imaadaan hal abuur ay ku horumareen sababta xaqooda loo ilaaliyay markaan joogno Soomaaliya oo kale ganacsiyada hadda Europe iyo Mareykan ka shaqeysanayo Soomaalida iyo Afrika ka shaqeysanayo hadii ay jir lahayd xeerar noocaas ilaalinayso wadankeena horumar u yeelan lahaa waxana wax soo kordhinaya marka waxa yeelay dadka waxay soo saar laayihiin in horumar socdaan waa xuquuqdan ilaalin hanta maskaxeedka dastuurka Soomaaliya iyo xeerar kale ee dalka sidee bay u ilaaliyeen xuquuqda lahaanshaha hantida aad ma santahay dastuurkeena Soomaaliya qodobka 26 ayaa ku cadahay federaalka oo sheegayo qof kasta inuu xaq u leeyahay inuu yeesho hanti gaar ahaaneed hantida tii hadda aan ka hadlaynay ay qayb ka noqonaysaa waa hantida maguurtada hantida aan muuqanin marka qodobka wuxuu leeyahay qof kasto ay macna lama kala saarin macna not discrimination qof kasto oo Soomaali muwaadin ah ama muwaadin ahayn ee wadanka ku nool
ha noqdo ajnabi ha noqdo muwaadin xaq wuxuu leeyahay inuu yeesho hanti u gaar ah hantidaasna ay u ilaalinayso dawladda maadaama loo yaqaano يعني هنتدا privacy أو قفك شخصي أنا ويالن كرو أنت أنك إهين هنتدا حاران كأه مركا هنتدا حاران كده ماشي تمادو عن شرعي إهين مركا قفك حق ما يالنا لكن هنتدا حلاشة كسب كيسة حقه وليه هاي sidoo kale markaan aado shariicada islaamka waxa lagu sheegay ilaa iyo 5 asal qofka uu xaq u leeyahay in loo ilaaliyo oo ka soo qaad soo ahaan ilaalinta nafta qofka bini aadamka naftiisa in la ilaaliyo waxyaabaha xuduudda islaamka ilaahay ku sheegay waaye waxa ku jiro maxay ahayd qofka in lagu ilaaliyo ilaaliyana diintiisa sidoo kale qofka aqligiisa oo xaloo yaqaana aqliga asalka qofka waxa soo galayso qofka maalkiisa asna in la ilaaliyo waa shariicada islaamka taasoo ilaahay quraankiisa uu ku sheegay aayado badan sala ahaan waxa kamid ah aayada suuratul mulki aayada 15 oo ilaahay ku leeyahay huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur sidoo kale ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay suuratul baqara aayada 88 wala ta'kulu amwalukum baynakum bil batil oo macnaheedu yahay qofna xoolihiisa qof kale si sharci darro ah yuusan uga cunin marka shariicada islaamkana waa waafajisay oo tan aan ka hadlayno kaliya yaan loo qaadanin guryaha muuqdo baabuurta muuqato lacagta muuqato kaliya ma noqonayso waxay noqonaysaa hantida aan muuqanin qofka in uu ka soo koobiyeysto asagoo idin la'aan ah uu isticmaalo sababtoo ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay sidoo kale wax loo yaqaano heshiisada ama mucaamalaadka ka soo qaad su'aal ahaan qofkan hantida iskale waxa dhici karto in heshiis ama uu dhahay yani waxa aan aniga adiga ku heshiiyeen waxa ka mid noqonaysa in confidence-ga ama confidentiality-ga ka soo qaad shirkadda laga shaqaaleysiiyay waxa ku qoran heshiisyada qaarkood in aad ilaalinayso sirta company-ga aad ka shaqeynayso u fiirso meel kasta oo bini aadan ka shaqeynayo shaqooyinka shuruudaha waxa kamid ah meesha aad ka shaqeynayso ilaali shuruucdeeda iyo xeer dhaqankeeda ilaali waa heshiisyada qof lagu shaqaaleysiiyay waxa ku jirta marka inaad ilaaliso confidentiality-ga oo macnaheedu yahay sirta company-ga ama shirkadda ama dawladda aad shaqeynayso qofka marka maxaa la galay uu saxiixay qofka marka maxaa la galay ahdiga la galay samaha ahdiga la galay waxa kamid ah in shirkadda waxa dhici karto ka soo qaad salaad shirkadda loo yaqaan Coca-Cola saaran ku sanay Coca-Cola waa shirkadda adduunka ugu qadiimsan uguna lacag badan ganacsigan adduunka ku heeshata waay maxay ilaashataa hanta maskaxeedka sheygan loo yaqaan Coca-Cola laga sameeyo Coca-Cola laga sameeyo faantada laga sameeyo kaligeeda heesh adduunka lama isticmaalo kaligeeda la isticmaasho shirkad kale ma saari karto marka confidentiality-gaas oo sirtaas la ilaalinayo shaqaalaha meesha jooga way sameyn karaan inay soo xadaan ayaga ay sameystaan yani magac noocaas ay qaataan maadaama ay haystaan waxyaabihii company-ga lagu sameeyay oo qiimaha u yeelay because يعني property-ga Coca-Cola in يعني sheygaas laga sameeyanayo ashtada kaligooda iskale marka maxaa marka xanibay maxay tahay heshiiskii oo ahaa in la ilaalinayo sirta company-ga ayaa la ilaaliyay marka taas markay noqoto marka Soomaaliya timaado meelahaas oo kale marka meelaha laga fiirinayo tusaale aayadda quraanka Ilaahay uu ku sheegay maxay tahay wa awfu bil ahdi إن العهد كان مسؤولا آيات قرآن وايو وما كان هلا contract جوا law of contract وحيتها هي قفك وح كقوله الشيء وإن أد أوفيسا هذه أد أوفيون ويسو شرعي أكو قوانايو لكن نقطة شرعية محيط ولا كلا قرطي هذه أي نقطة تي إلهي حقي سنة وحد سميسي بلن كبح كدبنا إلها كل ساعة تمايو وحيابها لقوا يقانو قفك خيانة سمايو أن لا آمنين كذن مركب بقول كي مركان في النص الصومالية سجاشن إستجال وحيابها هذا أنك هلا كلي وحيل كفيرن هنتدا موقتا هنتدا أن موقنن إلك ردعو مالين كستو every day دعان مركا حقوق الأصناع ويجرتا لما إلاليو مركا إلهي القرآن كيسو كشجع دستور كنا وكشجع قدر كلواتن إله حرك معي دستور كالصوماليات أو له qofkasta xaq wuxuu leeyahay hantida gaar ahaaneed sharcigan uu ilaalinayo waa tahay markan waxaan siinayaa ka qaybgalayaasha waxa ugu horeeya Maxamed Cumar Geedi Maxamed soo dhaw su'aasha aad wadin lahayd abukaata gadiy alxamdulillah wa salatu wassalamu ala rasuulillah marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Himilo marka su'aasha aan rabay hadii aan u soo gudagalo waxaan rabay inaan weydiiyo abukaata gadiy su'aasha ah heshiisyada caalamiga ah sidee ay u ilaaliyeen xuquuqda lahaanshaha hantida Soomaaliya عاديا
waxaan dhahnay waxay ka mid tahay wadamada caalamka heshiisyada caalamka ka dhacayna Soomaaliya qayb ayay ka noqonaysaa in ay ilaaliso xuquuqaha hantida ayadoo ay fiirinayso xeerarka caalamiga waxaan soo qaadan karnaa sida qodobka 104 dastuurka Soomaaliyeed oo sheegayo waajibaadka in ay Soomaaliya ay qaadato ayna ku dhaqanto heshiisyada caalamka ka dhacay ayaa waxaa faraya qodobka 104 dastuurka Soomaaliyeed taa marka aan u fiirino marka in Soomaaliya dariiq ay ugu furan tahay inay isticmaasho xeerarka caalamiga ah ee ilaalinayo xuquuqda hantida waxaan soo qaadanaynaa marka heshiisyo badan jiro oo adduunka Soomaaliya haday saxiixdo wixii ka horeeyay 1990kii heshiis kasto oo ka dhacay adduunka oo lagu ilaalinayo xuquuq Soomaaliya qayb ay ka noqonaysaa wixii ka dambeeyay 2012kiina xilliga Soomaaliya ee ka baxday ku meel gaarka ayadana wixii ay soo saxiixday oo intii Soomaaliya aysan ku jirin macnaha xilligii oo dhibaatada badneed ee 90kii ilaa 2012kii wixii markaas adduunka heshiis laga sameeyay Soomaaliya qayb kama noqonayso markaan fiirino xeerarka caalamiga ee xeerka noo qoran marka heshiisyada caalamiga ee ilaalinayo hanti maskaxeedka ama hantidaha caadiga waxaa ka mid ah African Continent Free Trade Area oo loo yaqaano AFTA oo Africa heshiis Africa ay gashay oo lagu ilaalinayo hantida heshiiska commerce kale oo Soomaaliya maxay ay toole ayaan dhaxdaasan filaa in Soomaaliya ay ka soo qayb gashay Soomaaliya sidoo kale waxay ku jirtaa wax loo yaqaano ganacsiyada adduunka oo international trade laws ku jirta oo wasaaradda ganacsiga ayaa badanaa soo sameysay marka xeerarka caalamiga Soomaaliya qayb ay ka noqonaysaa oo hadii in case ay noqoto in lagu xadgudbay macnaha hantida caadiga ah ee qofka uu si qaldan ugu isticmaalay qofka xaq wuxuu u leeyahay inuu dacwo ka furto asagoo isticmaalayo xeerarka dalka iyo asagoo isticmaalayo xeerarka caalamiga ahba hadii ay noqoto marka taas hantida muuqata waa hantida aan muuqanin Soomaaliya waxaa jirto heshiisyo caalami ah sida ka soo qaad sida loo yaqaano Aribo waxa laga soo gaabiyay African Regional Intellectual Property Organization Africa way ka sidoo kale waxaa jirto heshiisyada caalamiga ah intellectual property-ga ama maskaxeedka ee loo yaqaano WIPO oo laga soo gaabiyay World Intellectual Property Organization sidoo kale waxaa jirto waxyaabaha copyrights-ka lagu ilaalinayo hanti maskaxeedka lagu ilaalinayo waxayna soo hoos gashaa wax loo yaqaano ITO International Trade Organization marka waxyaabahaas oo dhan Soomaaliya qayb ay ka tahay haday noqoto hanti maskaxeedka haday noqoto hantida caadiga ah ee qofka loo ilaalinayo marka Soomaaliya way isticmaashaa wayna ku dhaqantaa laakiin beeska wuxuu yahay xeerarka caalamiga ah waxay amraan ama ay u sheegaan dawladaha qaybta ka ah in ay sameystaan xeer waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee arintaas markaas khaaska u ah si lagu apply gareeyo xeerarka caalamiga ah marka dhibkana haysta waxay tahay anaga xeerar ma leeyihiin xeerarkaas oo la jaan qaadi karo xeerarka caalamka markaas taagan marka taas waa tan dhibka naga haysto laakiin xeerarka caalamiga Soomaaliya waa lagu dabaqaa markay noqoto ilaalinta xuquuqda hantida waa tahay waxa xiga Maxamed Muxudiin Cabdulle Maxamed soo dhaw su'aasha aad qabto bismillaahir rahmaanir rahiim qareenka u mahad celina sidoo kale wariyaha uu mahadsan yahay radio Milo waxaan rabaa qareenka inaan weydiiyo laba su'aal su'aasha koowaad sidee bay shareecadu ama diinta islaamku ay u ilaalisay xaq lahaanshaha hantida iyo su'aasha labaad oo ah maadaama la dhahay qofka xaqiisa soo rabo u isticmaali karaa waxa aad ugu laalaabatay xaqa fikirka aad ugu laalaabatay waxaana sheegtay sidoo kale muddo 50 sano ama 100 sano oo kale macnaha in la isticmaali karo yay tahay fikirkaas inuu haayo inta muddadaas maadaama nidaamka dawladda oo isku qordhiib isku yahay in nidaamada ay isbedelaan yay tahay in xaq u leh suldaday haynayso laba su'aal oo muhiim ah aad weydiisay labada su'aal xasaasi ah qofka si isweydiin kara waaye tan koowaad waxa waaye waa shareecada islaamka iyo waxa ay ka qabto hantida in la ilaaliyo tan labaadna waxaan filayaa inay tahay maadaama fikradaha hantida fikradaha oo ay noqotay in 100 sano ama 50 sano wadamada ay ku kala duwan yihiin la ilaalinayo yaa keedkaas xafido oo haday noqotay in la ilaaliyo hadaan ku hormaro su'aasha koowaad oo ah islaamka iyo xaqa hantida
islaamku waa cad yahay markastaba islaamka waxyaabo macnaha oo bini aadanka ilaahay asaga xikmad ugu talagalay in adduunyadan uu ku kala badbaadiyo marka kala badbaadinteeda qayb kamid ah waxa waay in la kala ilaaliyo xaqa marka xaqa ilaahay wuxuu ku sheegay labo xaqullaahi iyo xaqunnaas marka hantida waxay soo hoosgalaysaa xaqunnaas soo hoosgalaysaa marka xaqunnaasna waxa lagu ilaaliyay shariicada islaamka aayado qur'aan ah sheeganaan soo qaadanay oo ka soo qaadso su'aal ahaan suuratul mulki aayada suuratul mulki yaa lahaabo suurada macnaheeda mulki macnaheedu waxa waay lahaanshiyo waaye aayada 15 waxay leedahay huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dululan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur taasa ku fasirayso macnaheedu yahay qof kastaba dhulkaas ilaahi wuxuu ka dhigay in aad ka manaafacaystaan oo aad ku nacfisaan aad ka shaqaysataan khaliifatna la idin ka dhigay marka qof kastana ilaahi meel buu ku irsaaqay meeshii ilaahi uu ku irsaaqay ha uu isticmaalo sida ilaahi uu ogol yahay oo macnaheedu yahay ha ku xadgudbin qofku walaalka xaq aadan lahayn ha isticmaalin waa amar ilaahi uu bixiyay waay وكلوا من رزقه وأمر وكلوا من رزقه وإليه النشور sidoo kale سورة البقرة آية 68 أيضا آية القرآن كوحي هاي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني قفك حقيسة يعني سقل دن قفك لحقي سقل دن حقوق هذا أو استعمال ومعنى هذا أيضا وحيته وفعل أمر وإلهي كأمر وهدي مركة السميسو waxa hadda ilaahay uu ka manciyay macnaheeda automatically waa lagu qabanaa xilliga lagu qabto ama adduunyada lagu qabanaa lagu ciqaabaya hantadaadii cudurra laga girdaya oo adiga ku manacfinaysid ama hadii ay noqoto inaad ku nacfiso يعني ugu dambeys waxa laga jaraya awlaadaadii laga jaraya adiga markastaba ilaahay adduunyada kugu lacanadaya kugu dhibaateynaya aakhirana waxa ku yaalo in aad يعني aad ku mutaysto jahannamo bini aadanka dhexdiisana waad ku nacaladan tahay oo qof kasta wuxuu ku arkay inuu qof xun tahay taa marka xagga islaamka waaye oo markay noqoto tii sharcigana waa ka soo hadalnay oo waxay ahayd in maxay toole qofka uu xaqiisa sharciga wuxuu yaqaanaa hadii xaq uu ka maqan yahay cadaalada kuma soo raasanayso ee adiga waayo qofka cadaalada inuu raasado ay tahay maxkamadaha aad tagto ka soo qaad maxkamadaha dalka markaad fiiriso maxkamadda gobolka Banaadir markaad tagto maxkamadooyinka degmooyinka waxa wadiyaalo dhan xaq la isku haysto waayo oo la isku haysto milkiyad oo haddii noqoto milkiyad muuqato iyo milkiyad aan muuqaninba taa marka waxa waaye xagga sharciga waaye taas su'aasha sasa ugu bixinaa su'aasha labaad ee xigta ee ah hanta maskaxeedka maadaama aan sheegnay hanta maskaxeedka shuruucda adduunka waxay ku kala duwan yihiin in qofka milkiyadda hanta maskaxeedka uu lahaanayo xaqaas muddo 50 sano waxa qabo Yuruba qabto Mareykan qabo 100 sanana waxa qabto waxaan filaa in Mareykan taa 100 sano Yuruba 50 sano qabto in loo ilaalinayo marka hadii marka ay noqoto Soomaaliya hadii aan rabno aan ku dabaqno horta waxa sal ah in horta uu jiro xeer adduunka wax kala hagaaya xeer waay shay kasta oo la sameeyo ama maamul kasta oo la sameeyanayo hadii uusan jirin xeerka asaga lagu sameeyo maamulka laakiin anaga markaan Soomaaliya joogno waxaad arkaysaa waxa la dhisayaa gudi waxa la dhisayaa hay'ad waxa la dhisayaa meel sharciga ma jiraba adduunyada waxa wax sida lagu kala hagaagsan maxay tahay horta koo waxa la sameeyaa sharciga kadib sharciga waxa ka dhax abuurmayso hay'ad ama xafiis ka dhax abuurmayso marka dhibkana heesta waxay tahay ayadoo xeerkii lagu shaqeyn lahaa uusan jirin ayaa waxa la sameeyaa wixii la qaban lahaa haday noqoto hay'ad haday noqoto gudi haday noqoto wasaarad haday noqoto xafiis haday noqoto meel ganacsi haday noqoto jaamacad haday noqoto marka muhiimadda waxay tahay wax kasta waxa kala hagaayo xeerka waxa loo yaqaanaa wax umad ku heshiisay oo kala ilaalinayso xaqa iyo waajibka isku qabanayso because xaq kasta waxa kala ilaalinayo waajib marka uu horeyso horta ilaalinta 100 sano ama 50 sano oo hadda aan sheegnay adduunka laga isticmaalo hanta maskaxeedka Soomaaliya hadii la rabo in lagu dhaqmo ama la dabaqsiyo waxa asal horta koo in la helo xeerkaasna waxa loo yaqaanaa Copyright Act ama xuquuqa ilaalinta hantida yani oo copyga waxyaabaha qofka hadii in case uu rabo inuu ka copysto haduu ka copysto internet ka copysto ama intuu ka soo qaato intuu meel kala tago ka copysto fikradii intuu soo qaato ku shaqeysto waa copy marka rightskaas waxa laga sameeyaa sharcigaas oo ilaalinayo marka waxay noqonaysaa markaas ka bacdi waxa la sameeyaa ama Soomaaliya ha qaadato 50 sano ha qaadato 100 sano ha qaadato 10 sano marka
halkaas lagu cadeynaya marka meesha lagu xafidayo caadiyan sharciga sheegi doono hadii ay noqoto meel lagu xafidayo laakiin caadiyan Soomaaliya waxay leedahay meesha laga soo diiwaan geliyo waxa lagu diiwaan geliyaa wasaaradda arrimaha gudaha oo sigeysa wax kasta dalka hoos yaalo kasoo qaad markii hadda ay rabto inaad sameeyso NGO ama aad rabto inaad sameeyso urur ama aad rabto inaad sameeyso wax company ah meesha laga soo qaato registrationka laga diiwaan gelinayo waa meesha ay ku noqonayso in laga helo kasoo qaad su'aal hadii hadda aad rabto inaad sameeyso shirkadaas magaca uu bixin rabto hadii ay tahay kasoo qaad mithal ahaan furre ama wax magaca baxsan rabto marka shirkada saan loo geeyo shirkada waxay ku leedahay magacaan hore u jiray macnaheedu waxay noqonaysaa magacaan waa la leeyahay waa hanti qof kale uu leeyahay waaye marka magacaas haduu hore u jiray ma qaadan kartid marka magacaas hore u jiray waxay ku diiwaan gashan yahay meesha laga soo diiwaan galiyay waxay leedahay arkiifkaas ay ku jirtaa arkiif diiwaan gashan tahay mararka qaar koodna waxa dhici karto hadii ay noqoto dacwooyin aan noqoto waxa la geeyaa meesha loo yaqaano waxaan filayaa inay jirto akademiyada maxay ahayd lagu xifdiyo hantida ama suugaanta kale waxa jirta jirta akademiyada suugaanta Soomaaliya inay jirtaan fila oo ka soo qaad su'aal ahaan waxay ku taalaa madaxtooyada agteeda ku taalaa oo waxay ku qoran tahay meesha loo yaqaano macnaha magaca loo yaqaan akademiyada macnaha waxyaabaha suugaanta ama waxyaabaha soo dhan ama dhaqanka kale taasoo kale taa loo sameeynaya laakiin waxa loogu talagalayaa kaliya hanti maskaxeedka marka hanti maskaxeedka waxaan dhahnay waa tiro badan tahay haday noqoto gabayada kale hanti maskaxeed waaye fikradaha kale hanti maskaxeed waaye design-ka oo kale ama loogada kale hanti maskaxeed waaye naqshadaha hanti maskaxeed waaye qoraalada oo la qarto ka soo qaad safaha buug qoraayo buug uu qoray asaa iskale hoos waxa uu qoran copyright uu qoran qof ma isticmaali karo hadii qofkaas uusan ka haysanin idin qofkii hore u qoray marka meelaha lagu xifdinayo meelahaas waa marka qaabka loo ilaalinayana waxay ku xiran tahay hadba sharcigaas aan hagaayo qaabka loo ilaalinayo waxaan soo dhaweynayaa Ibtisaam Xasan Aadan Ibtisaam su'aasha aad weydiin lahayd ustaadka marka koowaad waa maadsan yahay qareenka iyo idaacadda Himilo bismillaah waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aal mid koowaad sidee bay xeerarka iyo dhaqanka Soomaalida u ilaalisay xuquuqda lahaanshaha hantida mid labaad hadii ay farabataan dadka wax alifay yaa waa qofka saxda ee u dacwoon kara inuu leeyahay xuquuqdaas tusaale hadii design-ka company-ga ee wada alifaan saddex qof ee ku doodaan khilaaf dhex imaado yaa waa qofka saxda loo siinayo caadiyan Soomaaliya waa wadan islaam ah waa dal islaam ah shariicada ay ku go'an tahay wax kasta oo ay tahay in la ilaaliyo dhaqanka Soomaalidana asna waxa sal u ah shariicada islaamka ayaa noqonaysa talaabo kasto la qaadayo macaamilaadka bulshada in looga dhigo base ama sal looga dhigo soo waafaqsan qodobka saddexaad qodobka labaad aan ka bilaabo dastuurka federaalka Soomaaliya sidoo kale qodobka saddexaad dastuurka federaalka Soomaaliya markay noqoto salka Soomaaliya ay u tahay wax kasta oo la qabanayo sharci ahaan inay shariicada islaamka ay tahay sal qodobka afraad ayaa asna wuxuu leeyahay markii dastuurka uu sheegay wax kasta oo la sameeyo inay shariicada asal u tahay kadib dastuurka wuxuu leeyahay dhaqanka laftirkiisa hadii la soo aado xagga dhaqanka aad ka dhawaajisay dhaqankana hadii uu ka hor imaanayo shariicada islaamka iyo dastuurka dhaqankaas asagana wax kama jiraan waaye oo macnaheedu uu dhahayo dhaqan kasto ama xeer kasto oo ka hor imaanayo shariicada islaamka iyo dastuurka mabaadi'diisa oo ah ilaalinta xaqa ama xeer ama lagu xadgudbaayo dad waxa ay leeyihiin hadii ay ka hor imaanayaan shariicada islaamka waxba kama jiraan waaye marka sal waxa uu horto ku waxyaabaha aan sheegnay in lagu ilaaliyo mabaadi'da shariicada islaamka sida aayadda quraanka ahayd wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'uulan waxay ku fasirmaysaa law of contract sharciga heshiisada ay ku qotontaa oo macnaheedu yahay waa illegal waa sharci darro wax lagu heshiiyay in aad u daba marayso aad isticmaasho waxay noqonaysaa waana tuuganimo waxa soo galaysaa tuuganimo soo galaysaa marka automatically qofkaasna wuxuu noqonayaa dambiile su'aasha labaad waxay ahayd hadii ay noqoto in la isku qabsado oo saddex qof ama afar qof oo kale ay hanti maskaxeedkaas wada yeeshaan caadiyan hanti maskaxeedka waxay ka imaataa hal qof caadiyan hal qof ay ka imaataa halkaas qof ayaa lahaanayo
because hanti maskaxeedka lacag ma ahan oo qofkan $5,000 keensaday kan $10,000 keensaday kan $50,000 keensaday markaas waxay sameynayaan wax loo yaqaano company ama shirkad ay sameynayaan taa waxaa laga sameeyaa wax loo yaqaano article of association ama qodobo lagu heshiiyay oo ay ku heshiiyeen ama ku qoranayaan ama waxaa loo yaqaana MOA oo memorandum of understanding lagu sameeyaa laakiin marka noqoto hanti maskaxeedka sideeda waa personal way waa intellectual property waa maskaxda waxa ka imaanayo qofka maskaxdiisa qofkaas kuma jirto qofka maskaxdiisa kuma jirto kasoo qaad maanta waxaan rabaa inaan aniga alifo wax cusub oo adduunka aan ku soo kordhiyo marka waxa cusub ugu soo kordhayo maskaxda qof kale kuma jiraan fila aniga leeyahay sama keligii waa marka aniga ay noqonaysaa waxa aan soo alifay oo qofkaas aan la wadaagay qofka aan la wadaaga marka waxay noqonaysaa qofkaas aan la wadaagay macnaheeda asaga ma lahan anta maskaxeedka siya iskale qofka maskaxdiisa ay ka soo maaxatay aan fila su'aasha u dhigmaysaa qofkaas wixii uu ku dara ka waran okay very good haddii marka ay noqoto qofkan hanti maskaxeedu la yimid lacag ma haysto laakiin fikradu la yimid ninkaana lacag uu haystaa asaga hanti maskaxeedku maalgelin soo qaad su'aal ahaan aniga waxaa maanta aan soo alifay telefoon oo wadanka aan ka jirin ama shay ku cusub bini'aadanka oo hore aan jiri jirin ana iskalaanshadaas lagagama horeynin ko bina ma wato ana iskale ilaaha maskaxdiisii oo ilaahay macnaha oo maskaxdiisa san u isticmaal laha oo ilaahay asaga macnaha karaamo ilaahay uu siiyay isticmaalayo marka waxa laga yaabaa inaan shilin haysan laakiin waxaan haystaa hadda waxa sameeyay soo qaad salaam bank way sameeyay saan filaayo salaam bank ku maalgelin saan filaayo qofku wuxuu imaanaya fikirta loo maalgelinaya marka fikrad lagu maalgeliyo qofku ku maalgeliyay iyo adiga waxaad kala qornaysan heshiiskaas muxuu yahay waa memorandum of understanding heshiiska kala qornaysan marka heshiiska kala qornaysan maxay tahay qof kasta waxa ku cad doorkiisa hadii ay noqoto in aad isqabsataan oo waxay noqonaysaa maxkamad la isla aado oo hadii ma la isqabsato waxay noqonaysaa niyo fikirka already ninkan fikirkiisa waa ku jira meesha uu gatay ninkan hantidii wuu ku shaqeeyaa khilaaf ka dhacay marka maxkamadda isla aad maxkamadda kala saarayso waxay u kala saaraysaa soo qaad su'aal ahaan waxa leeyahay adiga maxaad leedahay adna maxaad leedahay oo kala qoran yihiin automatically wax u kala qornaa ay kala baxayaan maadaama wixii ay yihiin wax qoran ka soo qaad hadda xeerka markay noqoto madaniga soo gelaysaa waxay soo gelaysaa qodobka 272 xeerka habka madaniga oo ah waxyaabaha qoran ee maxkamadda dacwad gaaban ahaan ay ku soo dhameystirto ama ay ku soo gabagabayso kadib waxa loo diray wax loo yaqaan fulin marka fulintu waxay ku xirantahay maxkamadda ku xirantahay dirada insha Allah waxayna noqonaysaa wax loo yaqaan adiga waxa aad leedahay ma waxa rabtaa in hanshadaada gooni lagu bixiyo fikirkaada adigu gooni ku yahay ninkan uusan isticmaalin ninka marka hanshadaas maxaa uga noqon karto oo macnaha marka waxa loo yaqaan maxaad ku leedahay maxaad ku yeelan kartaa marka waxay noqonaysaa in loo kala qasaar qaybiyo kadibna ay noqonayso in loo kala qaado xoolahooda oo maxkamadda ay ku xukunto marka laakiin waa arin adag markay noqoto kala saarideeda waxayna ku xirantahay hadba maxkamadda qaabka u maarayso abukaate kaliya maxaad kula dardaarmi lahayd madaxda iyo maamulada dalka guud ahaan si loo ilaaliyo xuquuqda lahaanshaha hantida aad ma santahay dardaarankeena ugu weyn haday noqoto xagga maadaama anaga aan dhinac sharciga ka fiirinayno anaga sharciga dhinaciisa fiirinaca kala siyaasadda shaqo kuma leeyin waxaan leenahay aan u soo jeedinaynaa dawladda in tallaabo kasto la sameynayo sharciga la waafajiyo sharcigana waxaa asal u ah shariicada islaamka qaduusan ka hor iimaanaynin wixii shariicada ka hor iimaanayo waa ulaba lama qaadanayn laakiin shay kasta oo la sameynayo fadlan sharciga ha lagu dabaqo maxay ay toole shuruuc oo hadda waxa aan ka hadlaynana waxay muhiim u tahay dalkan hantida maskaxeedka iyo hantida oo muuqato intaba Soomaaliya kama jiro sharci ahaan ugama jiro hal sharci kaliya jiraan fila oo loo yaqaan sharciga shirkadaha ee soo baxay 2019kii oo laftirkiisu iska daciif yahay laakiin shuruuc guud ahaaneed dadkan wax isku haysto Soomaaliya dhibka ka taagan maanta oo dhibkan ugu weyn oo haysto waxay tahay waxa la isku haystaa xoolahana waa ilaaha quraanka isku sheegay waa wax lagu haligsamo oo yaani halaaga aakhiri adduunka laga qaado waa xoolo qof oo san lahayn qof kale isticmaalayo si ka duwan sida loogu talagalay waxaana uga sii darnaan Soomaaliya aad ugu sii badanaya hanta maskaxeedka oo dadka ay kala dhacaan iyo hantidan la kala dhaco marka waxaan u soo jeedin lahaa in la sameeyo xeerar la jaan qaadi karo islaamka shariicada islaamka iyo xeerarka caalamiga iyo dhaqankeena
laguna kala ilaalinayo ummadaas marka intaasaan soo jeedan lahaa dilaad insha Allah waa maasantiin guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii tusmada sharciga oo aanu maanta ku eegnay ilaalinta xaqa qofku u leeyahay inuu yeesho hanti u gaar ah uuna u isticmaalo sida uu rabo waxaa nagala qayb galay asxaabta kale ah maxamed muxudiin cabdulle ibtisaam xasan aadan iyo maxamed cumar geedi waxaana marti inoogu ahaa maxamed cabdi kadiye oo ah abuukaate iyo bare jaamacadeed intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaan Allah ma gurxamo libaaxii dadku gacashanaya garboodkay cayaaraan shabeelkii wax